Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaashin Marian. Waxaa ku faraxsanahay maanta inaan mar labaad idin soo hor fadhiisto. Waxaan u mahad celinayaa intii videoyaasheedii horeeto u kobaad daawatay, intii share garaysay, intii dhiirigelin iyo talo ii soo dirtay. Intaba waa idin mahad celinayaa. Thank you very much. Sidaa la socotaanba videogeygii horeeto waxaan idinla wadaagay waxyaabo aad samayn kartid oo maskaxdaada iyo caafimaadkaaga u fiican. Waxaas oo aad iyo aad u sahlan ama aybataba wax aan isdhihi karno waxba saameyn ah kuguma yeelan karaan, laakiin aad iyo aad u muhiim ah. Haddii aadan ka faa'iidaysan videogeygii hore daawo. Haddii aad macluumaad kaleeto aad adiga og tahay oo waxyaabo aad jeceshahay inaad sameydo ila soo wadaag insha Allah. Marka videogan wuxuu ku saabsan yahay inaan bal waxyar ka ogaano waxa mental health ama cudurrada dhimirka ku dhaca waxa ay yihiin inaan ogaano. Aniga doctor miihi waan ku tali jiraa inaan noqdo doctor mental healthka ama dhakhtar cudurka dhimirka ka shaqeeya inaan noqdo waan ku tali jiraa, laakiin dhakhtar wali ma ahi. Marka waxyaabo yar aan aniga intii experiencegayga ah iyo intii aan arkay aan la wadaagi doonaa insha Allahu tacaala. Intaanaan u gudagelin cudurrada saameeya dhimirka ama cudurrada ku dhaca dhimirka, waxaa iga xasuus ah in ay tahay caadi inaad dareento murugo ama caro ama baqasho xilliyada adag. Dhibaatooyinka soo wajaha noolaha ayaa qof walba si gooniya u saameeya. Waxaa laga yaabaa qof in uu laba qofood ay isku wax ku dhacaan, markaasna qofna uu ka muujiyo walaac ama diiqad ama caro ama murugo, qofka kaleetana uu iska yiraahdo xalaal caleega oo jafjafo oo hore uga sii socdo. Marka qof walba dabeecadiisa ama experiencegiisa ama xaaladaha uu soo maray ayaa keenaysa taas. Cudurrada ku dhaca dhimirka ayaa aad u fara badan. Waxaase waaweyn ama most common ah depression iyo anxiety. Taas oo noqon karta ama generalized anxiety disorder ama panic disorder ama waxyaabahaas noqon karta ama OCD. Marka sidaa lagu garan karaa calaamaadka ugu waaweyn oo lagu garan karo qofka inuu depression hayo ama uu anxiety hayso waa maxay? Waxyaabaha lagu garto ayaa ka mid ah xanaaq fara badan ama diiqad fara badan. Waxaa ka mid ah walwal siyaada ah, in aad wixii aad samayn jirtay oo aad kari weysid oo aad energy u weysid ama motivation aad u weysid, adigoo wixii aad jeclayd xitaa samayn kari waaya oo naca. Waxaa ka mid ah adigoo dadka iska naca amaba ku diiqadooda hadalkooda iyo la macaamilkooda. Waxaa lamida in waxaa ka mid ah in aad hurdadaadii ama cuntadaadii ay isbedelaan. Waxyaabahaasaa ka mid ah. Intaas kuma koobna. Waxaa kaloo jira waxyaabo jirkaaga aad ka dareemi kartid laysagu fara badan yahay. Cudurka dhimirka ayaa qof walba si gooniya u saameeya. Waa la ogyahay waxyaabo symptoms general waa jiraan, laakiin qof walba si gooniya u saameeyaan. Ma ahan qof walba inuu exactly the same way u saameyn karo. Haddaba maxaa sababa cudurrada dhimirka ku dhaca? Waxaa sababtooda ka mid ah koritaankaagii caruurnimo, sidii aad usoo kortay, xaaladii aad kusoo kortay. Waxaa ka mid ah dhibaatooyin mar hore aad la soo daristay. Waxaa ka mid ah kuwa hadeertaanba kusoo wajahay oo aad hadda ku dhex jirtid. Waxaa kaloo ka mid ah oo mararka qaar ay tahay in la iska dhaxlo
oo waalidkaagii ama qof familkaaga kamid ah ayaa cudurku ku dhacay koodii hore adigana markii dambe laga helo. cudurada dhimirka hadduu qofka ku dhaco doesn't mean inuu qofkii yahay qof weak ah ama daciif ah, inuu qofkii ilaahay uusan aqoonin, inuu qofkii yahay qof ilaahay wixii uu u keenay ku sabri waaya. sidaas ma ahan. qofka waxa waaye cudur ma ahan qofka wax uu kontrooli karo. muhiimada ayaa ah qof kastoo anaka naga mid ah inuu ku dhici karo, ama saad rabtid u adkaaw, ama saad rabtid diinta ugu dheeraaw, ama saad rabtid mutacalim u noqo, ama saad rabtid lacag badan u hayso. waxaa muhiim ah inuu qof walba oo anaka naga mid ah uu ku dhici karo. waxaa xasuus ah in uu qof kasta oo cudurka dhimirka qaba uusan ahayn qof dadkii jajabinaya ama waxyaabihii propertygii xoolihii dayacaya, ama asaga dhanba violent ah oo qof laga cararo yahay, oo qof gooni laga dhiga yahay. ma ahan saas ma ahan. wax yar percentage yar oo kamid ah dadka mental health haysta ayaa qof kale waxyeeleeya. marka badankood waxa waaye qof wax aadan u jeedin, qof aad isleedahay hebel waa iska roon yahay ayaa laga yaabaa in uu la nool yahay murugo saa'id ah ama walwal saa'id ah, inuu dareemayo culays saa'id ah, inuu isleeyahay macnaha gooni aad tahay. qofku fahmaya malahan, oo keligiis isagoo iska aamusan oo iska xanuunsan yahay. dadkuna ay u mudaan qof iska caadiya ayaa badan, intaasaa badan inta guryaha nool oo maryahoodii sita oo laakiin xanuunsanaysa oo anagu aanan ka warqabin ayaa aad iyo aad u fara badan. marka su-aasheeda ugu dambeyda ayaa waxay tahay kaloo qofku ma ka bogsan karaa ama mala noolaan karaa cudurka dhimirka ka bacdi markii laga helay oo daawo uu helay oo therapy uu helay oo macnaha la daaweeyey, qofkii sidiisii ma kusoo noqon karaa? jawaabta su-aashaas waxaa waaye haa. dad badan oo badana anigaan marin ahaan aan arkay oo aad isleedahayba ilaahay amuurtiis laba qof waaye ya. qof waxaa arkaysaa asagii dhammayba raf u ekaay oo aad isleheed ilaahu rabbi raxmaan oo qofkan u micin, oo asagii dhammaa iska xanuunsanay oo bahadlaynin oo iska ooyayay ayaad arkaysaa qofkii oo maalinkii dambeeto dhar qurux badan iyo nashaad iyo nuur iyo wax ka muuqdaan. marka ma ahan in uu qofka hal maalin uun inta iska soo kaco oo iska fiicnaado. maahan. waxay u baahan tahay shaqo adag, waxay u baahan tahay dhiirigelin xagga familkiisa iyo friendskiisa. marka waa laga bogsan karaa insha allah. sidaas waa inaad dadka u sheegtaan. marka waxaa kaloo waxyar ka taaban lahay adiga haddaad famil tahay familkaaga qof kamida uu ku dhaco, ama friend saaxiibta ama saaxiibka ay xaalad lasoo daristo, sidaad oo advice gareynaysaa? the best thing aniga idiin sheegi karo, hal wax haddaan idiin sheegi karo maanta aad ka baranaysiin channelkayga waxaa waaye in aad dhageysato qofka. listening is the best thing that you can do for someone. listening to them. that doesn't mean like ina laba erey markuu yiraahdo aad dhahdid waa lagu yaqaanaa, anaa aqaana waxa ku haya, waxay ku dhacday eedaday, walaasheed, saaxiibteed, midda guriga gadaashiisa, gurigaas buluuga, guriga cagaarka kasii dambeeya gabar joogta ay ku dhacday, anaa ku aqaana. saan iyo saanaa la sameeyaa, geedahan iyo waxaana la cunaa, fitamiinkan iyo kanaa laisku daraa, kaarootaa la shiitaa. no sug horta qofka naqaska ha iska saaro, mogtahay? naqaska ha iska bixiyo, waxa ha sheego, ha ooyo, tishow dhiib, haye iwad, haye waa ku fahmay, haye saas leh, saas kuwad. in aad macnaha aad dhahdid adiga keliya maahan, dad badanay ku dhacaan ya.
adiga kaligaa matid meeshaan, waan ku caawi doonaa, anaa ku garab taagan. ya ereya naxariis ku jirto oo dhiirigelin ku jirto oo hididiilo muujinaya oo rajo muujinaya inaad kula hadashid muhiim ah. markaas ka bacdi wallahi information horta meel kastoo joogaa, luuqadaa ku hadashidba badankan dadka inta Soomaaliya laga raaba even dadka Soomaaliya jooga badankanaga waxaan ku hadalnaa luuqad labaad. marka luuqadaada hadday Ingiriis tahay ama Jarmal tahay ama Swedish tahay ama Faransiis tahay ama Carabi tahay, I know macluumaad afka Soomaaliga ku qoran oo cudurka dhimirka ka hadlaya way nagu yaryihiin, laakiin wax fara badan yihiin luuqadaha kaleeto waxa lagu qoray. marka luuqadaada ku raadi, google-ka geli wixii aad qofkaas ku tari kartid ku tar. even adiguba hadda kasoo bilaaba, you don't have to inaad noqotid psychologist ama qof mental health ku takhasusay inaad noqotid qofkii saad u dinji lahayd. kaba soo qaadba qofkii wuu ooyayaa, ma neefsanayo, wuu panic attack ku dhacay, wuxuu isleeyahay waan dhimo rabaayo kuleeyahay, inaad dhahdo okay fariiso istaji, okay iraac neefteeda raac, oo neefta aad hoos kor usoo jiidid oo neef weyn aad soo dejisid. markaasna haddana mid kaleeto iyadiina sidii qadarkii leh aad ceshatid oo waxa waaye hadda maaha midka caadiina maaha, waxa waaye midka oo calooshaada kor usoo qaaday, garbahaaga kor, markaasna haddana dejinaya. inaad qofkiisas dhahdid oo dhahdid haye ila sameey, waa kula sameynaya anigana. markaas ka bacdina aad adigoo degan aad u nasteexaysid insha Allah. I hope inaa wax yar ka faa'iideen. haddii aan qaldamay iga raali ahaada, ilaahay qaladkayga ima hayga cafiyo. haddii aan wax saxa idin sheegana ilaahay ha idinku anfaco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.